السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وعن أو وناكسن ميل البوت عالم كجوكتان halkani waa Shaafi Media aniguna waa Shaafici Shacali Honesty waxaan rabaa maanta wax yar inaan idila wadaago sida aan wada ogsoonahay fankeena Soomaaliyeed wuxuu ahaa jiray mid aad iyo aad u qurux badan waxaan lahayn abwaano fanaaniin iyo dadyo badan ku xiran fankaas aad ka qurux badnaa tan iyo xilligii burburkii dagaalada waxaad moodaa fankii xanaqaadkiisa weynaa in uu dhumay walow ay jiraan fanaaniin iskood isku xil saaray ayagu hobbigooda ahaa ee isa soo saaray kuwaasoo markaasi entertainment u samey jiray ama madadaalo jiray shucuubta Soomaalida meel walba caalamka ay kula joogeen haddaba waxyaabaha aan rabo inaan idila wadaaga maanta waxay tahay waxaan daawaday oo ila wadaagay mid kamid ah wariyaasha reer London waliba ahaa laakiin hadda ka shaqeeya dhanka magaalada Muqdisho wariye Cabdullaah Wish ayaa barnaamij aad u qurux badan dadku inta badan aanay wada fahmi karin laakiin markii la daawaday oo noqday barnaamij aad iyo aad u xiiso badan ayuu dadweynaha Soomaaliyeed oo u soo bandhigay waxaan kamid ahaa dadkii oo soo siiyay markaasi ayagana jeclaystay inay si fiican u daawadaan runtii aad baan ugu helay waxyaabaha aan idin leeyahay wax kala ma ahan waxa weeyaan tusaale ahaan fanka qayb muhiim ah ayuu lahaa xamariga heesaha xamariga ah raxamarka badana ee lahaa jireen ayaad moodaa xoogaa gaab weyn inuu ka jiray tan iyo xilliga burburka lan fanku wuxuu u baahnaa dawlad dhaqaale iyo garab siisa waan ogsoonahay fankeena Soomaaliyeed wuxuu lahaa taageero aad weyn sidaas awgeed dawladii hore ee xilligaasi ahmiyad weyn ay u lahayd fanka walow dawladaha hadda is xigay ee dambe ee ku meel gaarada iyo ta completka inta ka dhaxaysaba aysan macnaha maarateen ahmiyadaas dawladii hore ay siisay sababtoo ah heer waxay gaartay dawladii horento loo dhiso guriyo loo sameeyo mushaaraad ee qaataan exfiora ayaa kamid ah halkii markaasi fanaaniintii hore ay deganaayeen nasiib daro fanaaniinta hadda jirto arrimahaasi ma aysan helin hadal yaan ugu daalin ujeedadan rabaa inaan abaara marka waxaan ugu dalnayaa waxa weeyaan wariyaha wuxuu kaga duwanaa wariyaashii iyo saxafiyiintii kalanta ee Soomaaliyeed ee hadda jeer soo bandhiga waxyaabaha wuxuu kaga duwanaa wuxuu si gooniya ah ula kulmay fanaaniintii xamariga heesaha xamariga qaadisay ku luuqeynayay because heesaha raxamarka badanaa waxay lahaayeen qaab jilintaan ah oo marka tiyaatarka laga dhigayo kaleento ama la sameynayo kaleento waxaa jiray gabar iyo wiil qoobka ciyaar ka sameynayay ee jilayay halka markaasi laba fanaan oo caan ah oo magac leh sida Aways Khamiis oo kaleento iyo Lul Janaani oo kaleento ay qaybta hoose ay ka soo heesi jireen marka dadku inta badan way ogaayeen dad badan way ogaayeen in dadkaani labadan qof maslaxa saaran qofka ciyaarka sameynaya jaasaya markaasi ciyaaraya inay yihiin dad jiltaan ah laakiin codka aysan lahayn dad badan way ogaayeen walow dadka qaar aysan u fahmayeen in labadaas ay fanaaniin yihiin anyway fankaas wuxuu ahaa wuxuu ku dhisnaa marka qaab isgarabsi ah oo waxa fanaanka iyo fanaanada qaybta hoose ee undergroundka maslaxa ayay ka heesi jireen tiyaatarka markaas laga heesayo kalanto qaybta hoose ayay ka heesi jireen halka labada actor ee filimka ama riwaayada maalintaasi ka shaqeynaysan ay banaanka taagnaayeen markaasi ay riwaayada jilayeen oo la qalqaadeen macnaha la keenayeen haddaba waxa aad isu jiitay wariyahan qaabka oo abaaray Cabdullaah Wish ayaan ka hadlayaa qaabka uu abaaray xamariga oo si gooniya ah u saaray marka dad badan oo daawanaya barnaamijkaasi ayaa aad waxay u xasuusteen xilligii riwaayadihii horeento la jili jiray dadkii horeento waayo dadka xamariga xilligaasi sideetmeeyadii iyo wixii ka horreeyay fanka ku jiray waayadan dambe dad soo muuqdo oo maslaxayda saaran maysan ahayn badankood marka laga hadlayo waayo waa dad dawlad ku noolaa markaasi mushaari ahaa dawladdu wax ka qaadanayay
wax soo bandhigaya riwaayada soo bandhigaya marka maadaama qax iyo problem iyo dhibaato iyo xabad buntuq ay u yaqaaneen lagu jiray waxaa markaasi adkaatay in fankii intay lagu yaqiinay badneed in sidii u sii wadaan sorry marka dadkii aad taqayneen xilligaasi dadka aan aqoonina ay ku daawadeen sharaxii la tumay sheeka ka dambeysay iyo riwaayadihii kalantay faraha badnaa ee markaasi soo bandhigi jiray dadkii wax ka jeli jiray ama ku jiri jiray ayaa macnaha maaragtay riwaayadaasi ku jiro marka dadkaas ayuu la kulmay wuxuu rabaa marka inuu soo bandhigo rabaa oo macnaha maaragtay oo si gooni u soo bandhigo oo dadkaasi waxay sameynayeen iyo sidii u shaqayn jireen oo soo bandhigo oo dadweynaha oo la qaybsado marka waxaan rabnaa marka daawadayaal adikana in anaa idila jeclaystay anoo markaasi amar ka haysta wariyaha inaan idila qaybsado waxyaabahaasi oo soo duubay oo dadkiisa u soo bandhigay marka I hope in adikana aad ka heli doontaan marka aan idigu wareejiyo saaxiibkay wish oo la kulmay fanaantaas aad baa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jimco wanaagsan akhyaarta meel kastoo aad joogtaan maanta saad u jeedeen fiidiyoyaasheedii hore waxaan la joogaa fanaaniinta banaadiriga kuwooda ugu caansanaa waayadii barisamaadka ilaa iyo haddana si aad iyo aad loogu yaqaano dhammaan soomaalida meel kastoo ay joogaan waxyaa maaragtay aan ka bilaabo dhankayga midig waxaa joogto fanaanada caanka ah Sitey qosol wanaag oo aad ku taqaanaan riwaayado aad u fara badan riwaayadihii banaadiriga ugu badnaa Sitey marka ugu horreys ku soo dhawow waxaad xasuusaa riwaayadii kugu horreysay ee aad maaragtay ka qayb gasho riwaayada aad Sitey maseeri horta waa mahadsantihiin waa dhowahay waxaa la dhahay maseeri muruga caashaq haye waxaa iska lahaa abwaan cabdiqaadir sayid shaja Sitey muddo wadanka waa ka maqnayd oo maleynaya Sacuudiga joogtay صح dalka dib ugu soo noqotay bal waayadii hore iyo hadda xamar muddo yar koobana joogtaa isbedel noocay ah Allahu akbar taas ma laga sheekay karo haye bas nin walba wadanka wax ku dhaama lawa maanta dadkii reer banaadiriga ahaa oo dhan inta isugu imaaday qofna kama maqna intooda badan inkastoo in badan ee naga cudur daarteen maanta intiina badan waa wada joogteen dad badan oo xasuus galay fanaaniin badan oo fanaaniinta muddooyinkii dambe soo baxay kamid ahaa ayaa ma aragtay fiirsanaya heesihiina maanta bal waxaad iga warantaa maanta fanka banaadiriga sida hore uma xoog badna maxaad is leedahay Sitey fanka banaadiriga hoos u dhac ku imaad maxaad banaadiriga waxa waaye burburka sabab lahaa haye maahane awal waa noo xirnaa jir aagan 3 bilood 4 bilood aan riwaayad dhigi jirnay maalin xataa waa dhigi jirnay haye marka insha Allah yakun khayr naqanay biidnillah bal hees kamid ah heesahaagi xusuusta aniga kibirkii beerta ka heestay waxaa ka heestay aan jeclahay maarta cadaabti caashiqa waxaa ka heestay damac aduun haddaan qaldaneen waxaa ka heestay riwaayado aad u fara badan oo maaragtay riwaayadaha badankoodna waxaa samayn jira oo maleynaya Axmed Cabdi Gaashaan Ditorafi waa badan yihiin bal hal hees maanta dadweynaha inkastoo wareysi dheer aan qaadan karin aniga adiga hadda hal hees Sitey qosol wanaag laga soo daboola daran deeqda ka daadate waa lay dulmaaye daa'imow daryeele diralayaashee doolyaxa asaqaadee haddafee kuwii isoo dabrayo dabkaan ii shide waaye الله يا عزك هذا mahadsantahay waxa waaye xusuusana geliseen waxa inta ila joogo fanaankeenna weynaa xaaji xinni oo aad ku wada taqaanaan riwaayado badan sidii riwaayadii gacalkii maxaa kala geeyay ibn aadan suwaaye arrinaa kala geysay iyo riwaayado kale oo fara badan xaaji xinni ku soo dhawow adna waxaa ka maqnay dalka muddo dheer muddo hadda 2 sano oo maleynaa inaad ما يتوقع كمان يتوقع 7 سنة جوكتها أول كوريا منا جوكتي جمنا جوكا بل هساجي هس كميدا روايدي ابن عاد سواي أرنا كل جيسي بل واحد أبو شك
هسه أنا عاد أوجع على عواكي قعلك قعلكي معك لقي أستاذ أحمد ناجي سعد وسبي صح أحمد ناجي سميها أي أنا كيف هذا مغازن غادن ما شاء الله إيشك وبالي موهل وياي بالي وبالي موهل وياي بالي هويا لي هويا لدي هسي هورا ويا المامي ماي هويا لدي الله يعزك حاج حني وايد ابن آدم إسواينا هيسا كلها هسه بدنا كلها bal hees nooga soo qaad heesta waxaan u malaynayaa riwaayadda magaceeda ee ku fadhiday inaad qayb ka ahayd ibn aadan suwaay arrinta kala geesaa umaayi abaanira uurkee kuma yaale anigoo walogeenaad ilowdeene amarkaani waade uurxumaan iska dhowre amarkaani waade uurxumaan iska dhowre ibn aadan iswaaye arrinaa kala geesay ibn aadan iswaaye arrinaa kala geesay waa mahadsantihiin adaa mudan waxaanala joogta dalfanaan waxaa dhashay gabadhaan ay bintii maamadii atiriishanimo ka soo qaangaartay maamanimo ay bintii axmed sheekh gabadheeda waa sanaa muslumo iidana fanaanad waaye waa heesaa waa jilaa maasha allah ubadkeeniyaaba soo koraya maasha allah hadda ayagaana fadhiisinaya ay binti waxay ka mid ahayd jilayaasha ugu caansan marka ruwaadaha la jilaayo aad iyo aad dad badan waxay ku jiri jirtay waalidnimo inteeda badneed aada ugu faraxsana inaan kula kulan magaalada muqdisho anoo muddo joogo soo dhowow walaashay walaalkay aad iyo aad u mahadsan tahay waana ku dhowahay walaal macaan walaal faari maasha allah hooyo marka aad ayay jilaayeen ahayd maasha allah sidii haddii maad saarnaa kala geyso waxay leedahay weli way ku jirtaa kor waxay kama talay waxay dhahay uurkaaga anoo lahaa aqalkii la iga ootay waxaan kaaga adkays inaan soo ordee ma fahanti marka aayadayna badanaa hoosay aaga jilays awdiin la nuur markay hooyo korka matalaysa sitaya hooska heesayyo aan dameynin dabinkiisa allay tagay ducadii awdiin la nuure idiinteeda reela waaye dembitaad kama qaade dulmidaa inkay daaxma saare dad iyo duur ma leesku deeye dareenka lahaawe aad iyo aad u mahadsantihiin xusuusaana geliseen dad badan oo waxaa jiro maaragtay da'aadeeda ama da'aadeeda ku soo dhow ama iga horreeyay iga sii weyn inay xusuus galaan sitee qosol wanaag xaaji xinni iyo walaashay oo maaragtay fanaanad ah ayadana dhal fanaan ah oo ay dhashay jilaaga caanka ahaa maam binti oo runtii riwaayado badan ka ahayd hooyo kuma tali jirta inta badan waan idin salaamayaa soo dhowaada aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan jeclahay faraxsanahay inaan aragno oo kula kulanno maasha allah tabaarak allah meel kastoo joogtiin ba allah idinku xifdiyo aad iyo aad waa mahadsantahay haddana waxaan u yeerayaa oo mar dhow oo inagu soo biiri doonto fanaanadeena Marya Naasir oo ka mid ah fanaaniintii kooxdii libaxyada maaweeliska banaadir isbahaysiga isbahaysiga gobolada waa beri أنا إسبايسي وابري بقى وابري إسبايسي واحد أحمد عبد القاشان هذا هو كل نور يهاي دلك نوروي نوروي وسلامنا أبوانكنا بابهنا كل إلابة لنا هاي الله إذا حفظي دمانتي لما كستاجوكتي يا محمد أبي سمود دي بكر كبرتما أدنى وكو سلامة جرمك وجوجا ما شاء الله واكو سلاني بابا عبد القادر نوراني واكو سلاني فنانين دمان فنانين تونا واود سلاني إمام النور جيلاني الله عافية الله نوع عافية ما وايد سلاني تمار علي شوبر واكو سلامي سماح فينوس شمس بشير تمار waxay joogtaa UK oo kusutay dhammaantiin qalbiga ida wada salaamay shamso عذر لولاي كل شحلي مريس ايضا waa joogtaa lugta meel lahayd dhammaantiin qalbiga ida salaamay maanta maalintii banaadiriga waay nacam banaadiriga waa isalnaa waa jeedaa maanta fanki banaadiriga in dib loo soo nooleeyo
ayaa hadda laga shaqeynayaa in dadka xusuustii hore ay geli jireen ay dib u galaan insha Allah waan soo dhaweynayaa waa ku faraxsanahay kulankan insha Allah ma noqonayso kulankii ugu dambeeyay kulmo badan aan ma aragtay kulmeena hees ugu dambeeyso heesi waxa noo soo qaadaa riwaayadii kibirkii beerta karfan saara jacaylka wareerka waqtiga keenaye wareey adduunya waayaheed wanaagiyo xumaan wax kasta la arkaaye weer ka dhaa wehelkii naftaydu wacadkii jacaylka wadnahayga wadnahaan ku wadaa aad iyo aad u maasantay sidii qosol wanaag halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad na soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambalka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiis